بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan asxaabtii walaalaha ku xiran janalka Bilaal Waane ku soo dhawaada mar kale cashir cusub iyo sanad cusub. hadduu Ilaahay raaco intaan guda jirno videoga waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maadada biology-ga fasalka form 1 chapterkiisa koowaad. Introduction to Biology. At the primary school, dugsigaagii hoose, you learn waxaa soo baratay ardayo about wax ku saabsan animals, xayawaanada, plants, dhirta, and the environment iyo deegaanadooda in the science course, maadooyin saynis ah. The science-ku in the primary level school ee dugsigaagii hoose wuxuu ahaa the study barashadu of living things, waxyaabaha nool, and non-living things, iyo waxyaabaha aan noolayn. The science cilmigu branches laama ayuu leeyahay. Saynisku sidiisa wuxuu leeyahay laama ayuu leeyahay. Natural science ayaa kow ka, social science iyo formal science. Dabiicigu includes waxaa ka mid ah by life science, cilmiga nolosha ka mid ah, or waxaan dhihi karnaa biological science ayaan dhihi karnaa. At the secondary level school, dugsigaaga sare, you will continue, ardayga waxaa sii wadi doontaa to learn, inaad baratid more about wax badan oo ku saabsan the animals, xayawaanada, plants, dhirta, and the environment iyo deegaanadooda in different subjects, maadooyinka la gedisan. These subjects maadooyinkaasina waxay kala yihiin biology, chemistry, and physics. In biology, marka aan joogno biology, you will learn, ardayga waxaad baran doontaa more about wax badan oo ku saabsan living things, waxyaabaha nool, and their environment iyo deegaanadooda in great detail, ayadoo si qoto dheer loo faahfaahinayo. What is biology? Biology maxaa la yiraahdaa? Biology-gu is a branch, waa farac of natural science ee ka mid ah sayniska dabiiciga, taasoo deals with khusaysa ama ka hadlayso the study barashada of living things, waxyaabaha nool. The science cilmigu which kaasoo deals with khuseeya the study barashada of living objects, waxyaabaha nool, and their life process iyo hanaanoleedkooda iskoolad ayaa waxaa loogu yeeraa biology. The word ereyga of biology-ga is derived from waxaa laga soo mingooriyay two Greek words, laba erey oo Greek ah, waa bios iyo logos. Bios micnaheedu maxay tahay? Which means taasoo micnaheeda ay tahay life, nolol, or ama living things, waxyaabaha nool. And logos which means taasoo micnaheeda ay tahay knowledge, aqoon, or ama studying, waxbarasho. Therefore, haddaba si fudud biology waxa uu qeexi karnaa is the study, waa barashada of living things, waxyaabaha nool. Exercise maanta aan qaadanay su'aalaha ka imaan karo. Which subject do you study the living things in the primary school level? Maadooyinkeeba ayaad ku soo baratay waxyaabaha nool dugsigaagii hoose. Name, arday waxaad magacowdaa main branches of science generally, waxaad magacowdaa laamaha uu leeyahay sayniska guud ahaan. Define, arday waxaad qeexdaa the word of biology, ereyga biology. Where does came from, xagee buu ka yimid the word of biology, ereyga biology. Which means micnaheeda lagu yiri the following terms, ereyadani soo socda. Bios maxaa la yiraahdaa? Logos maxaa la yiraahdaa? Intaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa cashirkeena maanta. Intaan cashirkan kale kaga kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa sida amaane Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.